Cameroon oo sida rasmiga ah loogu yeero Jamhuuriyadda Cameroon waa waddan ku yaala bartamaha Afrika. Waxay galbeed iyo waqooyi xuduud kala leedahay waddanka Nigeria, xagga waqooyi barina waxay xuduud kala leedahay Chad iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Xagga koonfureedna waxay xuduud kala leedahay Equatorial Guinea, Gabon iyo Jamhuuriyadda Congo. Cameroon ayaa hooy u ah in ka badan 250 luuqadood oo ay ku hadlaan ku dhawaad 20 milyan oo qof. daawade haddaba waxaan muuqaalkan kugu soo gudbin doonaa xaqiiqooyin iyo xogag laga yaabo inay tahay markaagii kugu horreysay aad maqasho oo ku saabsan waddanka Cameroon. ku soo dhawaada mawduuceena maanta. tirada dadka ku nool dalka Cameroon waxa ay gaarayaan ilaa 26 milyan oo qof. Dadka guud ee Cameroon waa 475,000 kiiloomitir square ah. Cameroon waxa ay ka kooban tahay 10 county ama maamul goboleedyo. madaxweynaha Cameroon ee Paul Biya waa madaxweynaha labaad ee ugu waqtiga dheer madaxweynayaasha qaaradda Afrika. waxaana talada waddanka hayaa tan iyo November 6, 1982 waana muddo xilligan aan joogno ku siman 38 sano. waddanka Cameroon waxa uu caan ku yahay soo saaridda kafeega, suufka, saliidda iyo weliba muuska. boqolkiiba 40 dakhliga waddanka waxa uu ka yimaadaa saliidda, boqolkiiba 19 waxa uu ka yimaadaa kookada oo waddankaas caan ku yahay. xulka qaranka dalka Cameroon waa kooxdii ugu horreysay oo Afrikaan oo gaarta afar dhamaadka koobka adduunka. sanadii 1990kii xulka Cameroon waxa uu noqday dalkii ugu horreeyay ee Afrikaan oo dhagaara afar dhamaadka koobka adduunka. sidoo kale xulka Cameroon waxa uu koobka adduunka ka qayb galay 8 jeer. Cameroon waa waddan dadkiisu ay ku hadlaan wax ka badan 230 luuqadood. waddanka waxaa looga hadlaa oo luuqad rasmi ah Faransiiska iyo Ingiriiska. webiga Sanaga waa webiga ugu dheer dalka Cameroon, waxaana dhererkiisu yahay 918 kiiloomitir. dalka Cameroon waa dal caan ku ah dhul beereedyada. koor helitaanka saliidda beeraha ayaa dakhliga ugu weyn ee dalka iyo waxa ugu badan uu dhoofin jiray. waxayna weli qayb libaax leh ka ciyaaraan beeruhu dhaqaalaha dalka iyagoo bixiya 40% ilaa wax soo saarka guud ee dalka iyo abuurista 30% shaqooyinka waddanka. qaar ka mid ah dalagyada laga soo saaro beeraha ayaa daboola dalagyada lacagaha loo baahan yahay iyo inta cuno ee loo baahan yahayba. beerta dalxiiska ee Wazza National Park ee ku taalla dalka Cameroon waa mid ka mid ah meelaha ugu booqashada badan qaaradda Afrika. waxay ku taalla gobolka waqooyi ee Cameroon. waxay markii hore ku bilaabatay beertan kayd ugaarsada u dhashay dalka Cameroon sanadka markuu 1934 ka hor intaanay noqon xadiiqad qaran 1968. waxay leedahay 30 nooc oo xayawaanaad kala duwan ah oo ay ka mid yihiin libaaxyada, daanyarada iyo maroodaga bush ee laga helo Afrika. waxay kale oo hooy u tahay noocyada kala duwan ee shimbiraha laga helay goobtan dalxiiska waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 379 nooc oo ay ka mid yihiin gorgorka weyn, dafada iyo kuwo kale oo badan. dadka saboolka reer Cameroon waxay ku tiirsan yihiin wax soo saarka beeraha. wax soo saarka beeraha ayaa door muhiim ah ka ciyaara nolosha dadka saboolka ee reer Cameroon iyagoo ka shaqeeya dhulkooda si ay cuno uga helaan qoyskooda. waxaa jira arrimo badan oo dhaqaale, siyaasadeed, bulshadeed oo u taagan sidii loo ballaarin lahaa beeraha. hase yeeshee beeraleyda qudaarta ayaa ka faa'iidaysata sifooyinka wanaagsan uu leeyahay deegaankooda. taariikh ahaan 1520kii Cameroon waxaa qabsaday gumaystihii Boortaqiiska. Boortaqiiska waxa uu Cameroon ka bilaabay abuurista sonkorta, wuxuuna sidoo kale ka bilaabay ka ganacsiga adoonsiga. sanadii 1884 Cameroon waxay noqotay gumaystihii Jarmalka ee Cameroon. wuxuuna gumaysan jiray Jarmalka ilaa sanadii 1911kii markaas uu Faransiiska ka wareejiyay Jarmalka. sanadii 1916 ciidamada Ingiriiska iyo Faransiiska ayaa ku qasbay dalka Jarmalka inay isaga baxaan Cameroon, waxayna Cameroon u kala qaybsantay laba dhinac, Faransiis iyo Britain, dhammaadkii dagaalkii koowaad ee dunida. sanadii 1958 Faransiiska waxa uu Cameroon u ogolaaday inay dhistaan dawlad ayaga u gaar ah, iyadoo Ahmadou Ahidjo uu noqday ra'iisul wasaare. waddankana waxa uu xoroobay 2 sano kadib, Master Ahidjona waxa uu noqday madaxweyne. sanadii 1961 gumaystihii Ingiriiska ee Cameroon ayaa u kala qaybsamay laba waddan oo kala ah Nigeria iyo Cameroon. sanadii 1982 ra'iisul wasaare Paul Biya ayaa ka guuleystay Ahidjona waxa uu ka cararay dalka kadib markii uu madaxweyne Biya ku eedeeyay inuu maleegay afgembi. sanadii 1998 Cameroon waxaa loo aqoonsaday inay tahay dalka ugu musuqmaasuqa badan adduunka. waxaa sidaa lagu yiri warbixin ay soo saartay Transparency International oo ah hay'adda dabagalka adduunka. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.
haddii aad ka heshay fadlan like, comment, share. haddii aad ku cusub tahay halkan subscribe saar, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalo walba oo aan soo gelino. mahadsanid.